الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. موضوع أها بداية رمضان إن أنك هذا النورنتي أهمية ديسة أي لكن إلهي سبحانه وتعالى wixii maanta ku horreeyey muusan na waafajirin aayadda aan ku furtay sheekhana allah ku barkeeyey waxayna tusinaysaa qur'aanka bisha ramadaan inuu ilaahay soo dejiyey. walidaalika bishan ramadaanka waxyaalaha khasaa'isteeda oo ilaahay gooni uu miisa u siiyey waxaa ka mid ah uu ilaahay ku sharfay qur'aankeenna kariimka in la soo dejiyey. qur'aankeenna kariimka إنه إلهي سبحانه وتعالى أسود جي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشي إلهي قرآن أسود جي ماشا ما عدو حبيبنا لسود جي مسمالين قرآنك آيات حيثرة أنزل فيه القرآن ماشا لو ما عدينين إن هبين لسود جي إن مالين لسود جي لكن آياتك القرآنك يا إن هبين لسودجية أي إلهي كشاكي إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة وهي ليلة القدر إن شاء الله. حلقة مدى كحيتو أيان كهالي دونا شهر الأواخر معه 10 الأواخر إيو ليلة القدر مركا هبينك بركة سنة أي قرآن لسودجية ولو هبينك ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. marka waxaan ogaanay quraanka bisha ramadaan in la soo dejiyey habeen barakeysan in la soo dejiyey habeen oo habeenka laylatul qadarka in la soo dejiyey oo khayrka badan khayru min 1000 shahr. quraanka haddaan tacriifino waxaa weeye kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala weeyaan kalaamullah uu ilaahay xaqiiq ahaan ugu hadlay jibriil malakul jibriil uu maqlay malakul jibriilna uu ku dul akhriyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sidaa nabi maxamedna uga qaatay. wa inahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi الruuxu الأmiin calىa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin. waa qur-aanka la tilmaamaya wa inahu latanziilu rabbi alcaalamiin wuxuu ka soo degay allah rabbi alcaalamiinka xaggiisa makhluuqa allah abuuray basharka bani aadamka iyo jamiic almakhluuqaat allah abuuray xaggiisa ayaa laga soo dejiyey. nazala bihi ruuxu lamiin amiin lmalaa'ika ayaa muxuu ah la soo degay amiin lbasharna waa lagu soo dejiyey oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waa kalaamka ilaahay uu ilaahay ku hadlay xaqiiqatan ugu hadlay. qur-aanka wuxuu leeyahay nusuulka markii laga hadlay uu soo degay laba nusuul ayuu leeyahay. mid waa midkan habeenka hadda aan hadlayno oo la soo dejiyey oo laga soo dejiyey lawxulmaxfuudka oo samada 7 ku yaallo lawxulmaxfuud lawxulmaxfuudka ayuu ku yaallay qur-aanka xaggaa laga soo dejiyey samaa saabica waxaa la soo dejiyey samaa dunya guri la yidhahdo beyt alciza ayaa la soo dejiyey jumlatan waaxida asoo duuduuban. waxaa weye waa degiddii ugu horreysay habeenkan ayuuna soo degay oo hadda aan sheegayno oo barakeysan oo bisha ramadaan laylatul qadarka. nusuulka labaad waxaa wey marka hore jumla waaxida ayuu soo degay beyt alciza marka labaad si mataqaanaa oo tartiibeh ayaa nabiga loogu soo dejiyey asoo mufaraq ah suurad suurad aayad aayad haddaba sidii xaajada iyo baahidii marka jirtay iyo jawaabihii markaa oo mataqaanaa uu nabiga alayh salatu salaam oo markii loo baahdo uu ka bixinayey. marka sidaasuu qur-aanka marka 2 jeer usoo degay
أنزل فيه القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال هذا واحد اعتراضين waxay ka wadaan maxaa nabi maxamed hal mar in loogu soo dejin waay dabcan nusuulka horreeyey waxaa la soo dejiyey jumla la soo dejiyey laakiin ayaga waxay leeyihiin ba muxuu ahaa maxaa aayad iyo suurad iyo mataqaanaa aayad intaasoo aayadood maxay ugu soo degi hal mar bay ku soo degi ictiraad oo meel la hasirin weeyaan kadalika linuthabbita bihi fu'aadak fawaa'ida waxaa ka mid ah tathbiit warattalnaahu tartiilan wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukt waxaan rabnaa bisha ramadaan iyo qur-aanka calaaqada ay leeyihiin se waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo dadka ay maqlaan wax yaroo ku saabsan ku tacalluqo fadliga qur-aanka kariimka uu leeyahay dabcan way garanayaan laakiin dadkan waan xasuusinaynaa qur-aanka haddaan ku horeyno aayado fara badan qur-aanka muxuu ahaa yani wax la tirin karo ma aha fadliga qur-aanka laakiin haddaan wax ka xasuusino aan xasuusino ilaahi subxana wa tacaala aayadda koowaad wuxuu yidhi ina aladiina yatluuna kitaab allah wa aqaamuu salaata wa anfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlih inahu gafuuru shakuur والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور كل وحويا يعني abaalmarinta ilaahay uu ku abaalmarin doono dadka ahlul qur-aanka ah yatluuna kitaab allah kitaabkay akrinaya ilaahay subxana wa tacaala tilaawada allah macnan ba waa lagu fasiray tilaawa bimacna alqira'a tilaawa bimacna alitibaac lianna alluqa alcarabiya talaahu bimacnaa tabacahu aw tabicahu wuu raacay marka labada macno aayadda way leedahay yatluuna kitaab allah horta akhrinaayeen qur-aankana raacayeen awaamirtiisa iyo axkaamtiisa iyo nawaahidiisa iyo mataqaanaa wuxuuna amray wuxuu naga reebay yatluuna kitaab allah qiraa'atu kitaab allah wa aqaamuu salaada ogeyn bishan ramadaan dadka mataqaanaa muslimiinta meelaa joogaanba sifooyinka in sha allahu qeyb ayay ka soo gelayaan kitaabka ilahay way akrinahayaan allah waafajiyo salaadiina waa la ogyahay midii faralkeed iyo midii sunnada aheed labadaba wa anfaquu mima razaqnaahum siran sadaqadina midii waajibkeed oo zakadii iyo midii tatawuceed in sha allahu ballanqaadka ilahay uu ballanqaaday inay helaan ayaan ilahay ka rajaynaynaa yarjuuna tijaaratan lan tabuur muxuu ahaa tijaaro aan halaagsamaynin aan khasaaraynin iyuu ilahay u ballan qaaday waxaa ka mid ah fadliga faraha badan oo qur-aanka sheekhana allah idin barakeeyo wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan qur-aanka ilahay wuxuu ku tilmaamay ruux waa naf limaada lianna ruuxda taxyaa bihi alajsaad jirka ayaa muxuu ayay nolol u taha waalqur'aanu taxyaa bihi alquluubu waاlajsaam jirkii iyo qalbiga iyo meel o dhan buu muxuu ah yuu nolol yahay walidalika ilahi wuxuu yihi ruuxan wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ruux ruuxa min amrina sida oo kale awaman kaana meytan waaba ruuxdii oo kale fiir awaman kaana meytan faaxyaynaahu axyaynaa wajacalnaa lahu nuura yamshi bih qur-aankii ayuu ku noolaaday wuxuu u noqday nuur iyo mataqaanaa wuxuu ku socdo uu ku hanuuno ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam waxaa weeyaan waa midka ku toosinaya dadka meesha toosan
wadada toosan sawaabka xaqa khayr oo dhanba qur-aanka ayaa nagu hanuuninaya. ina aladiina kafaruu bاdikri lama jaaءahum wainahu lakitaab caziiz laa yaأtiihi اlbaطilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanziilu min xakiimi xamiid. وhذا kitاab أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أنزلناه مبارك asaga waa habeen mubaarak la soo dejiyey, asagana waa mubaarak في ليلة مباركة أنزلناه في ليلة مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك. إلهي wuxuu yidhi wuxuu ku ammaanay dadka kitaabkan qabsado raaco والذيina yumasikuuna bilkitaabi qur-aanka dadka qabsaday oo ku hanuunay oo ku dhaqday oo ku camal falay wa aqaamuu salaata waxaad arkaysaa inay islaasimhayaan kitaabka oo lagu dhaqmo oo la raaco oo muxuu ahaa la akriyo iyo salaada. ina aladiina yatluuna kitaab allahi wa aqaamuu salaata والذيina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamuu salaata ina laa nudiicu ajra almuslixiin. qur-aanka dabcan wuu badan yahay, fadligii mataqaanaa qur-aanka ilaahay uu aayadaha looga warame aad bay u badan yihiin. intaa haddaan kaga kaftoono qur-aanka axaadiisa qaar haddaan soo qaadano, nabig alay slat slam wuxuu yidhi ina lilaahi ahliina min annaasi, ilaahay wuxuu leeyahay dad mataqaanaa oo ahl oo ilaahay loo nisbeeyey, ahliin min annaasi. waxaa la yidhi yaa rasuul allah man hum yaa yihiin? wuxuu yihi ahlulqur'aan hum ahlulqur'aan, waa dadka mataqaanaa ahlulqur'aanka ah. markaasu wuxuu yihi ahlulqur'aan ahlullahi wa khaasatuhu, waa dadka ilaahay, waa dad khaasa. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay naga dhigo ahlulqur'aan meel aan joognaba, kuwii qur'aanka mataqaanaa barteen oo ku dhaqmeen oo ku camal faleen oo raaceen, inuu ilaahay naga dhigo. lianna waad arkaysaa sharafta inuu nabigu uu yihi hum ahlullahi wa khaasatuhu. wuxuu yihi nabig alay slat slaam iqra'u lqur'aan fainahu yaأtii ywma alqiyaamati shafiican liasxaabihi. maalinta qiyaama wuxuu imaanaya qur-aanka asoo mataqaanaa oo shaafica oo u shafeecay dadkii oo mataqaanaa ahlika hadda aan sheegayni. iqra'u lqur'aana fainahu yaأtii ywma alqiyaamati shafiican liasxaabih. waxaan arkaynaa calaaqada ka dhexeysa qur-aanka bisha ramadaan, soomka iyo qur-aanka. wakadalika الصوم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع والصوم كذلك يشفع. waxaan ka rajaynaynaa inay kuwa qur-aanka u shafeece oo soomkana u shafeece inuu ilaahay naga dhigo subxaanaه wa tacaala. iqra'u الqur'aana fainahu yaأtii ywma alqiyaamati shafiican liasxaabihi. markaasuu nabig wuxuu yihi iqra'u zahraaweyn, qur-aanka si guun ahaad ayaa waxa la yidhi aqriya. markaas haddana waxa la yidhi iqra'u aلzahraaweyni. zahraaweyn ma taqaanaan? suuraة albaqara wa ala cimraan waxaa la yidhahdaa zahraawaan. wuxuu yidhi nabig alayh الsalaatu salaam qur-aanka si guud u akriya, haddana si gooni ahaane zahraaweynka akriya. fainahumaa yaأtiyaani ywma alqiyaamati suuraة اlbaqara wa ala cimraan kaanahumaa gamaamataani ow ghayaayataani. wuxuu yihi waxaa imaanayay suuraة اlbaqara iyo suuraةu ali cimraan ood moodo hogollo ama daruuro ama sidii uu yihi muxuu ahaa shimbiraha guuraan oo kale oo intaasoo koox kooxa. suuraة اlbaqara iyo ali cimraan uu nabig alay slat slaam oo haraynayaan dadkii ahlulqur'aanka yay hooseynayaan oy ka celinayaan yowma qiyaamaha dhibka iyo muxuu ahaa dhibaatada jirto. waxay kaloo imaanayeen wahumaa yuxaajaani liasxaabihima, dadkii qur-aanka ayagoo udoodayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala macnaha u shafeecayaan oo udoodayaan. qur-aankii oo suuraة اlbaqara iyo ali cimraan waa labadii suurado qur-aanka bacda faatixa, suuraة اlbaqara ali cimraan.
ها يا لها من فضل يا لها من فضل ها كلام الله يا شفيعي أهل القرآن سورة البقرة شفيعي آل عمران الشفيعي وهذه الشفاعة حرية أن تقبل وحي مدنت إلا أقبله وأنا اللي أقبله يا مركز صدر الحجر عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن اقرأوا الزهراوين مركز الحجر عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة قونيهان هذا ها فإن أخذها بركة سورة البقرة أو لبرته أو لا أخريه بركة ها وتركها حسرة إن لغا تقونا وأما أن لبرين أما أن لغو من أما أن لا أخرين وخسارة ميش أقود من ولا تستطيعها البطلة وحويرين منك سحردنا مكران الله معناه والله فصيله مكرانه محوها ما أخرين كران إلهي ما وافجيه لأن سحرة محوها وشياطين سورة البقرة محوها وحاويان محوها شيطان كاي حجاب كتا مكران لما وافجيه وعاكن اللي يري ننكي أخريه سورة البقرة أو دوامه محوها وح سحر يا سحرة شركوضة أو نبو إلهي كقبنايا سورة البقرة قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها نقول حجري ألف لام ميم أضاتره حرف ماها ألف هو حرف لام كنا حرف 30 حسنة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى أنت لا قالوا وبما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أنت كلي شيخ أضاد أخرسه أو حرف لوتري كورن يا نيكي كورن محوها جزء أخريه نيكي سورة البقرة أخريه نيكي آل عمران كدرو نيكي سورة النساء كدرو يا وحنو إيمان دونا سلفك رمضان كقرآن كسائي وآخرين دونان وآخرين جرين يا نو إيمان دونا كتابك مركو أمانة قرآن كحيري نبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين شرف مسلمين تا يعزي يهرمر يمتقانا محوها النصري يتمكين يعزي ما يقارن إلا مركي كتابك إلهي يكون رقمين أو يقبصدين ولذلك نبي حجري إلهي سبحانه وتعالى وحو كوريلا كتابك قرآنك ضد كوريلا أو كو رقمين أو رميين أو كو عمل فلين أو آخريين إلهي كربو أو غاضة ويضع به آخرين كوبا كلنا أو قرآنك كتاقين أو متقانا محوها طورين أو هلمامين إلهي محوها كوها نطلقوا قلية ولذلك أمد محوها مسلمين تمانتا واحد ذلي إيو كرامة دراء إيو متقانا إهانة إيو نولل أذك كل واحد صدن حياة ذينا وحقيبك كتابك إلهي أنضي يعني سبحانه وتعالى نيكا قرآنك الدنيا خرافة محوها وحوها واللبانة صاحب القرآن صاحب القرآن يوم القيامة وحلينا كل كلا ماذا وحلها يعني تذكر القرآن يقال لهم يوم القيامة اقرأ جنة هي الوجيدة اقرأ مركز الله وارتقي فول درجات الجنة ورتل قرآن كان ترتيب آخر سيدي كما كنت ترتل في الدنيا ده مركز جوتي ترتيب تدخلين جرتي حديث عن كفاءة لسنين إن أي متقان قرآن كلها لا آخرين إن ترتيب له أخريه سيدي إلهي بأوجد ورتل القرآن ترتيلا إن وحاده في عنايته أو متقان نيكا قرآن كالسدا وأخريه وعادة كدكته يوم القيامة وحكا في عنان دون نيكا قرآن كمركي وأخرنا يمحوها دكدو ببادئه لأن يقال لصاحب القرآن اقرأ قرآن كآخره وارتقي درجات الجنة فول قرصه ورتل فإن منزلتك محوها منزلة ذا أو جنة إليه وهلوك للدنيا وهم في الغرفات آمنون درجة ودرجات جنة ناتنا ودركات دركاته هوصل الله صعني جنة وحوي درجات صاحب القرآن وحده ده وحبة كدرجة سرائين وجرون لأنه مركي لجري محوها
aayadda ugu dambe meeshaad ku istaagto oo qur-aankana tartiib aad ku akrinin meeshaasaa mansiladaade meeshaasaa gurigaade meeshaasaa jannada ka degi ka warran ninkii ka soo bilaabe acuudu billahi min ashaytan rajiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin arraxmaan raxiim alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin ilaa marka uu soo gaaro fii suduuri innaasi min aljinnati wannaasi oo tartiibna uu socday uu akrinay tartiibna uu sii socday jannada maxaad u malayse allah ilaah muxuu ahaa ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu kuwaa naga dhigo kuwa inuu ilaahay naga dhigo marka koowaad inuu ahlu qur'aan naga dhigo haddana kuwa ilaahay oo mataqaanaa uu mansilada ilaahay uu ku sharfay inuu ilaahay naga dhigo ayaan ilaahay subxaana watacaala ayaan ka rajaynaynaa ninka saaxibu qur'aanka adduunyada waa muqadam asaa la horumarinaya asaa la horumarinaya waxaa la horumarinaya salaada oo cibaado ka sharaf badan aan jirin waxaa mataqaanaa waajib ah ninka xaafid kitaabillahi in la hormariyo ya umu lqowma nabig alay sala slam muxuu yihi aqra'hum likitaab illah ninka kitaabka ilaahay muxuu ahaa ayaa la horumarinaya muxuu ahaa xataa waxyaalaha adduunyada dadkeennan muxuu ahayaa dhaqanka meelo badan oo caalam islami waa looga dhaqmaa ninka qur-aanka majaalista iyo mataqaanaa meelaha oo muxuu ahaa qof dadka lagu maamuso waa la sharfaa walidaalika mithaal ahaan mamlaka alcarabiya sacuudiya dadka mataqaanaa aimat alxaram xaramayn sharifayn muxuu ah darajadooda waa darajo aad u sareyso aad baa loo sharfaa amiir almuminiin cumar wuxuu lahaa golow lahaa oo shuuro ah golaha waxay ahaayeen ahlulqur'aan dadkaas la tashan jiray ahlulqur'aan ayuu la tashan jiray ra'yigooda insha allah waa sawaab ra'yigooda waa sawaab insha allah kolkay dhintaan ayagaa la horumarinaya qabriga nabig alay slat slaam maalinta uxud oo saxaabo badan dhinteen waxay ku kaliftay in dadka laba kafan loo geliyo hal kafan loo geliyo nabig alay slat slam laba qof ayuu hal kafana gelin jiray markaasaa kolkii la dhegay wuxuu dhihi jiray ayuhumaa kaana akharu akhdan lilqur'aani ninka ayaa labadooda kee muxuu ah qur-aanka kee ku fiicnaa kee xaafid ahaa kii la yiro kana fiicnaa dhinaca lixidka kaasuu nabig alayh salat slaam ayuu dhigi jiray waa la hormar jiray annaga haddaan rabno inuu ilaahay uu muxuu aha liibaan inaan gaarno iyo guul iyo nolol wanaagsan adduun iyo qarnaba qur-aanka muxuu ahaa waa inaan u noqonnaa oonan muxuu ahaa qur-aankeenna wuu dayacan yahay xaqiiqatan in kasta oo dhinac haddii laga fiiriyo mujtamaceenna meelaha mataqaanaa oo hadda aada isdhihi dadka way ku fiican yihiin kolkaad fiiriso dugsiyada iyo muxuu ahaa saxwada kolkaad fiiriso saxwey laakiin haddaad afraad kolkaad fiiriso qur-aanka horta dadka in xaqiisa ay siiyaan oo ay akhriyaan aada uma badno in lagu dhaqmana ayadan muxuu ah waxaad moodaa inay ka sii xag jirto marka qur-aankana hataa ninka kolku barto inaad akriso keli kuma filno waa inaad mataqaanaa muxuu aha qur-aanka inaan muxuu ahaa aan raacnaa oon ku dhaqannaa oon isku daaweynaa oon mataqaanaa muxuu ahaa marjicuu noo noqdaa wax badan baad nagala doonaya ibn cabaas ayaa wuxuu fasiray cabdullahi ibn cabaas qowlahu tacaala faima yatiyanakum minii hudan faman itabaca hudaaya falaa yadil walaa yashqa wuxuu yihi kelima muxuu ahaa jumla cajiiba wuxuu yihi takafala allahu ilaahay wuxuu ballan qaaday waa damaana waa garanti liman xafida alqur'aana qur'aanka ninkii xifdiyo wa camila bihi xifdin kelima awow camila bihi ku dhaqmo takafala allahu ilaahay wuxuu u kafaala qaade uu damaana u siiyey uu garanti siiyey liman xafida alqur'aana
قرآن كان نينكي حفظيه وعمل به كل رغمه ألا يضل في الدنيا الدنيا إنه صنؤمن وصور دمه إله باب جري إن هذا القرآن يهدي للتي ولا يشقى في الآخرة آخرنا ومتقانا نصيب دسرن نصيب درائنا يكون يعني آخرة الدنيا ذنا ومتقانا وسنبادي يومين يا صوت إلهي تأن وجزنا صوت معها هنو سو كان آن لهن معها شنطة صلاة زيادة كل من تقولينه اهدنا الصراط المستقيم صو سمع لهن يا إله نقطة وضع توصل أسباب تكون سهل وضع توصل إن لقوه توسيه وحاكم ده قرآن كوما تقانا محوها أرقم سطو أو تكون رقنته إن هذا القرآن يهدي غير المغضوب عليهم ولا الضالين صومان لهن إلهي سماه جسنين قرآن كقبصه إلهي وضع أيكو توسينايا وحربة موضوعنا كسوق قبيو سلفك رمضان كل جوه قرآن كسي كن رقم جرين وعن بالله بينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وحوها النبي كان أقول ديق بدن وكان أجود ما يكون في رمضان ديق دي سنة وحوها أجود ديق وحوي معناها قفك أو بني آدمك نعفي إيه وحطر أوله لغما وضو قعنتو وحكا بحين ماها مايا وحكا حل دير معناها وح الله وحي دادك أيوكو أنفعي كرو أيوكو أنفعي قعن وح لغا بحيو محوها وناق لو شيغو علمي لبرو كم باهن أو متقان مواسات لقرب إساقو يا وحصونا وحويان ونوع من الجود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام رمضان كا جبريل أيها لكل مجري مركز القرآن كا أي دراسي دين يتدارسان القرآن وحليل الله معنا وحليل مدارسة القرآن معناه وحليل جبريل آخرنا يا مركز النبي عليه الصلاة والسلام وكذا آخرنا يا ما هي محوها جبريل آيات وقادنا يا عليه الصلاة والسلام نبينا آيات وقادنا يا مركز مر الله نبي عليه الصلاة والسلام وحو بنجي جري قرآن كسداس أيو أوجو بنجي جري هل مرأة وحليري سنة كون انت نبي عليه الصلاة والسلام لبا قور أي الله بنجي أو متقانا محوها وجبريل القرآن كا ياي وذا محوها قاتين أو وذا آخرين مركز نبي عليه الصلاة والسلام هذه جيسة سلا أيوها أو قرآنك صحابة رسول الله أيغنا نغن كافي عن النبي عليه الصلاة والسلام قاتين قرآنك محوها سدا أيي ليس حتى في محوها رمضان كلماها حتى في غير رمضان مثالهان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحليل كان يختم القرآن في كل يوم مرة ما نكسه وتقرن سن أمير من عثمان نبقى لو يجي كيف عملوا أمير من عثمان سوها عمل كيسة وحجري كان يتوضأ لكل وضوء لكل صلاة وعدوهد جملة هذا دقيسة كان يتوضأ لكل صلاة والمصحف بينهما أمير المؤمنين دأ بإعادة صلاة كسة إنه أويسيس معناها معها صلاة كجب تويسيس ماي تجديد الوضوء وحيلا دمحوها لأن الوضوء عبادة ليس كما يظن سيدي أي ضد مرين ما ضد حمودين صلاة دمحوها ويسدة إن محوها أي قطع اللغضة صلاة لا تكذب مايا هي عبادة مستقلة وعبادة قونية عبادة قونية وين عبادة قونية وين ولذلك الطهارة إلهي محوك أمان أهل القضاء فيه رجال يحبون أن يتطهروا طهارة وعبادة وحي لنا عليه الصلاة والسلام لا يحافظ الوضوء إلا مؤمن لا يحافظ إلا مؤمن وحفظنا يا قف مؤمنه
keli ayaa muxuu ah yaa xifdinaya walidaalika waxyaalaha ilaahay subxaana watacaala oo mataqaanaa darajaadka iyo muxuu ahaa lagu kor yeelo maxaa ka mid eh markuu nabig alayh الslat slaam alaa unabiئikum aw ukbirikum mima yarfac اllahu bihi adarajaat mima yamxu alkhadaaya wa yurfac adarajaat qaala alayh الsalatu wasalaam isbaaq اlwudu calى اlmakaari isbaaq اlwuduءi calى اlmakaari waktiga mataqaanaa oo ama biyaha ay qabow yihiin ama ay kulul yihiin yani jirka biyaha uu diiday ama qabow hala diido ama kuleyl hala diido oo laga yaabo dad qaar inay biyaha isma mariyaan ninka si fiican u weysiisanay waxay kamid tahay mataqaana isbaan qudu cala almakaari wa katrat alkhuda ila almasaajid wa intidaaru salaatin bacda salaat wuxuu yiri nabi alayh salatu salaam kuwaas ilaahay uu darajaadka jannada lagu kor yeela dembigana dadka looga dhaqaa isbaaq alwudu xilyat lmu'min waa nuurka mu'minka yowma alqiyaama abu hureyra wuxuu yiri wuxuu wari nabi alayh salatu salaam ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati guran muxajaliin min athar alwudu abu hureyra wuxuu ahaa weysada uu dheeran jiray macnaha asoo mataqaanaa oo yani uu rajaynay in nuurka uu u dheeraado yowma alqiyaamaha nuurka inuu u dheeraado ya marka cuثmaan radi allahu canhu waxaa la yidhi cibaadadiis waxaa ka mid ahaa alwudu likuli salaat walmasxu baynahuma labada salaadoodna maxaa weya intaa waxaa weeye waxaa la akrinaya quraan quraan u akrin jiray almasxafu baynahuma walidaalika in ay saato waxaa kuu daliile kolkii dhaalimiintii ay jilayeen waxaa la yihi qur'aan buu akhrisanay qur'aanka ayuu akrinay bal waxaa taarikh tasiirka waxaa la sheegay in dhiiggii oo mataqaanaa oo daahirka ahaa oo dhaalimiinta ay ka daadiyeen inuu masxafka ku daatay ya marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay uu soo bixiyo cuثmaan asagoo qur'aanka akrinaya lanna nabiga alayه الslat slaam wuxuu yihi man maata calى shayin bucida calayhi yowma alqiyaama qof kastaa wuxuu ku dhintay ayaa lala soo bixinaya ya wuxuu ku dhintay ayaa lala soo bixinaya saxaabada horta sidaas si guud ahaan salafka taabiciintii iyo dadka ka dambeeyey ayagana sidaa amba muxuu ah ramadaan khaasatan kolkii la soo gaaro waxaa la yidhi qur-aanka in badanoo aya ka mid eh saddexdii ayaanba saddexdii maalinba waa way khatimi jireen saddexdii maalin qaar baa saddex ku khatimi jireen qaar baa toddoba ku khatimi jireen qaar baa ku khatimi jireen muxuu ahaa toban ya waa lagu kala duwnaa imaam shaafici raxmat ullaahi calayhi imaamkeenna waxaa la yidhi kaana lahu khatma situuna khatmatan fi shahri ramadaan kaana lahu situuna khatma lixdan khatma lixdan jeer ayuu qur-aanka dhamaystir jiri khatimi jiray marka lixdan jeer haddaan idho maalintii meeqa khatmi uu khatimi jiray dabcan laba leanna bisha waa soddon soo saas maaha ya soddon haddii laba lagu dhufto macnaheed waxaa weye maalintiiba ya maalintii laba jeer ayuu khatmi jiray imaamu shaafici imaamkeena raxmat ullahi calayhi kaana lahu situuna khatma fi shahri ramadaan waa in badan oo kamid a maalan muxuu ahaa imaam malik oo kale imaam zuhri oo kale imaamu sufyaan athawri oo kale iyo kuwa badan oo mataqaana muxuu ahaa aimadii muslimiinta kamid ah waxaa la yihi ramadaan kolkuu imaado waxaa joojini jireen cibaada wixii cibaado o dhan ay joojin jireen min beyniha xalaqaati mataqaanaa kutub alxadiid axaadiis la akrinaya iyo muxuu kutubada akrinayeen iyo cibaadado dhan baa la joojin jiray waxaa loo tafaruqi jiray qur'aanka keli qur'aanka keli imaam malik wuxuu joojin jiray xadiidka zuhri saas oo kale sufyaan thawri waa mithaalun marka muxuu ahaa waxaan salafkeena kaga danaynaa bishan waxyaalihii ilaahay ay ugu dhowaan jireen oy aada u weyneyn jireen
waxaa ka kow qur'aanka mataqaanaa oo la akriyo qur'aanka oo la akriyo oo la khatimo waxaan mudannahay annaga inaan ku da'no ayaga inaan ku da'no leanna dadka wanaagsan waa lagu deedaa ilaahi subxana wa tacaala kolkii ambiyadii uu ka soo sheekeeyey suuratu ancaam ambiyadii laga soo sheekeeyey وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا آياتنا ننبأ قل كل سوى شيء ضمات النبي حلو يري أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وحليرك هدى ها 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 وحليرك هدى ولذلك اللطيفة لطيفة أضف عن في سورة صاد والقرآن ذي ذكر waxaa ku jira sajdaa ku jirta oo muxuu aha culimada qaar ay dhaheen laysa min cazaa'imi sajda laakiin sajdaa ku jirta wa khara raakican wa anaaba meesha marka waxaa sunne in la sujuudo culimada markaa waxay dhaheen maxaa meeshan loo sujuudaya meeshan muxuu ahaa annaga wax nala amrayo ma lehe nabiyullaahi daawuud baan laga xikaayonaye marka waxay dhaheen soo ilaahay markii nabiyada laga sheekeeyey fii suurati aayati tilka xujatuna soo nabiga lama dhihin ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi marka waxaa la yiri nabiyullaahi daa'uud kuwii la yiri iqtadi bihim latiifada fiir macaanida muxuu ahaa mufasiriinteenna jazakum allahu khayran nabiyullaahi daa'uud soo kumuusan ka mid ma ahayn ومن ذرية داود صمها ومن ذرية داود وسليمان صصص معها صلما أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي مركب على ما دام كده يلي والنبي محوها داود سجود ماشن نبي محمد داود سجودي أنا كان سجودينا وحان إلهي أنت أصلا تقريبا 10 كأنه ayaan ku soo koobaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa waxaan joognaa maalin oo mataqaanaa ramadaan aan soomannahay oo weliba muxuu ahaa afarka uu soo dhan yahay annaga iyo inta nala joogto iyo inta maqli doonto inuu kuwa ilaahay u waafajiyey qur'aanka kariimka barashadiisa iyo muxuu ahaa fahankiisa iyo ku dhaqankiisa inuu ilaahay naga dhigo kuwa qur'aanka u shafeece uu u xujoodi ilaa qur'aanka nabi alayh salatu salam wuxuu yihi alqur'aanu xujatun laka ow calayka inuu adiga mataqaanaa uu kuu doodo ama uu kaa doodo oo agaras uu kugu noqdo kuwa qur'aanka u dooday annaga iyo waalidiinteenna ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo soomkeenna iyo cibaadadeenna sadaqadeenna salaadeenna qiyaamkeenna ilaahay hanaga aqbalo ilaahay hanaga dhigo kuwa habeen kastaa ilaahay uu naarta ka xoreeyo ilaahay hanaga dhigo kuwa naarta laga xoreeyey ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ha naga dhigo kuwa soomka iyo qur'aankaba jannada ay u qaadeen na ilaahay ha naga dhigo subxaana wa tacaala allah nagu anfaco baaraka allahu fiikum wa sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wajazakum allahu khayra